Assalaamu calaykum daawada kusoo dhawow warbixinta taxanaha ah qaybtii labaad ee ku saabsan faragelinta qaawan ee Itoobiya ku hayso dalkeena Soomaaliya. Saamaynta Itoobiya ku lahayd maamulada gobolada gaar ahaan maamul goboleedyada ayaa ahayd mid xooganeyd, waxaana xiriirka maamul goboleedyada qaar iyo Itoobiya uu gaaray heer ay wakiilo ku yeelato maamul goboleedyada. Maamul goboleedka Puntland ayaa loo arkay inuu ahaa maamulka kaliya ee maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo xiriir soko la lahaa Itoobiya, waxaana dhowr jeer oo hore jiray eedeymo loo jeediyay oo ah in dad ka tirsan jabhadda ONLF laga qabtay Boosaaso iyo Garowe loo gacan geliyay dowladda Itoobiya. Faragelinta Itoobiya ku haysay maamul goboleedyada ayaa waxay mar walba ka dhigaysay mid awood u siisa dowlad goboleedyada inay dhankooda Itoobiya uga dhawaadaan dowladda federaalka, iyadoo madaxda maamul goboleedyada ay safarro joogto ah ku tagi jireen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. Iminkana geerida ra'iisul wasaarihii hore ee Itoobiya. Bishii Agoosto ee sanadka 2012 iyo kala guurkii xilligaasi ku jirtay Soomaaliya oo la isu diyaarinayay doorasho waxay ahayd laba dhacdo oo si aan la filayn isugu soo aaday. Tan koowaad, dad badan waxay u arkayeen geerida Mille Zenawi inay wax badan ka bedeli doonto qaabkii Itoobiya ula dhaqmi jirtay Soomaaliya iyo faragelinta uu ku hayay dalka sanadihii uu xukunka hayay. Arrinta labaad ayaa ahayd in Soomaaliya ay doorasho u diyaar garoobaysay, waxaana doorashadii dhacday 10 bishii Sebtembar sanadka 2012 madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo aan la filayn ayuu doorasho madaxweyne kaga adkaaday Shariif Sheekh Axmed oo xilligaasi hogaaminayay dowladdii ku meel gaarka ahayd. Kadib geeridii Mille Zenawi iyo isbedeladii ka dhacay Soomaaliya oo ku meel gaarka kaga baxday, waxaa xiriir fiican oo toos ah ka dhex samaystay Itoobiya iyo dowladdii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo sanadkii 2013 ay Itoobiya u soo magacowday safiir ka soo jeeday qowmiyadda Tigreega, safiirka cusub oo ka turjumaya xiriirka cusub ee labada dal. Khilaafyo dhowr ah oo soo kala dhex galay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, cidda xalka ka gaaraysay ama isu soo dhaweynaysay waxa ay ahayd dowladda Itoobiya. Markasta oo ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada isqabtaan, Itoobiya ayay ahayday halka xalka looga dooni jiray. Itoobiya ayaa kaalin weyn ku lahayd heshiiskii dowladda federaalka iyo maamulkii ku meel gaarka ah ee Jubba uu hogaaminayay Axmed Madoobe ku dhex maray magaalada Addis Ababa sanadkii 2013 kadib khilaafkii ka dhashay dhismihii maamulkaasi oo dowladda federaalka ka soo horjeeday iyo dagaaladii ka dhacay Kismaayo ee u dhaxeeyay garabyadii kala duwanaa ee isku hayay maamulka magaalada. Wadahadalladaas oo uu garwadeen ka ahaa wasiirkii hore arrimaha dibadda Itoobiya Tedros Adhanom Ghebreyesus oo iminka ka tirsan madaxda WHO. Dowladda federaalka iyo maamulka Jubba waxaa kale hogaaminayay Axmed Madoobe iyo wasiiru dowlihii hore madaxtooyada Faarax Sheekh Cabdiqaadir, waxaana ka soo baxay heshiis ay kala saxiixdeen labada dhinac. Qodobada heshiiskaasi waxaa ka mid ahaa in magaca maamulka Jubba uu yahay maamulka ku meel gaarka ah ee Jubba, isla markaana uu 2 sano ka arrimin doono Jubbooyinka iyo Gedo. Hogaamiyaha maamulka uu yahay Axmed Madoobe, in dekedda iyo garoonka diyaaradaha Kismaayo uu muddo 6 bilood maamulo maamulka ku meel gaarka ah ee Jubba, kadibna lagu soo wareejiyo dowladda federaalka. Axmed Madoobena loogu yeero hogaamiyaha maamulka ku meel gaarka ah ee Jubba. Wixii ka dambeeyay heshiiskii Addis Ababa ee dowladda federaalka iyo maamulkii ku meel gaarka ah ee Jubba, xiriir fiican ayay yeesheen Itoobiya iyo dowladdii uu hogaaminayay Xasan Sheekh, iyadoo xiriirkaasi siyaasadeed oo ahaa mid aad u xooganaa, waxaana barbar socday dhanka militariga oo markii ugu horeysay ay Itoobiya sharciyad u heshay ciidamadeeda Soomaaliya ku sugnaa. Horaantii sanadka 2014 ciidamada Itoobiya ayaa si rasmi ah uga mid noqday howlgalka ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana markaasi ay bilowday in ciidamo badan soo geliso gobolada dalka, taasoo ka badan tiradii loo cayimay ay kaga mid noqonayeen howlgalka AMISOM oo ahayday 4395 askari oo ka howlgalaysa 3 qaybood, waxaana bilowday howlgallo ay kula wareegayeen ciidamada Itoobiya qaybo ka mid ah deegaano ka mid ah Bay, Bakool, Galgaduud, Hiiraan iyo Gedo. Kadib heshiiskii Addis Ababa waxaa bilowday dhaqangelinta qodobo ka mid ah heshiiskii dowladda federaalka iyo maamulka ku meel gaarka ahaa ee Jubba oo ay ku gaareen bishii Agoosto ee sanadka 2013, waxaana bishii Agoosto ee sanadka 2014 suuro galay in la soo xereeyo ciidamadii uu hogaaminayay Barre Hiiraale ee dagaalka looga saaray Kismaayo oo fadhigoodu ahaa deegaanka Goobweyn, waxaana wafdi ka socday dowladda federaalka oo uu hogaaminayay Cabdullaahi Goodax Barre
oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha xukuumaddii Cabdiweli Sheekh Axmed waxay suuro geliyeen in ciidamadaasi la xereeyo laguna wareejiyo ciidamada AMISOM waxaana deegaanka Goobweyn la isugu keenay Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale oo halkaasi lagu heshiisiyay. Kasokow doorka dowladda federaalku ku lahayd heshiiskaasi waxaa la yaab lahaa kaalinta uu heshiiskaasi ku lahaa Cornel Gabre oo ka dhex muuqday kulamadii heshiiska ee Axmed Madoobe iyo Barre Hiiraale. khilaafka madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaarihiisa Cabdiweli Sheekh Axmed ee bilowday aakhirkii sanadka 2014 Itoobiya waxay ahayd dalka kaliya ee kula saftay Xasan Sheekh ridista ra'iisul wasaarihii hore ee Cabdiweli Sheekh Axmed iyadoo beesha caalamka ay diidaneed in la eriyo ra'iisul wasaaraha. riditaankii xukuumaddii Cabdiweli Sheekh Axmed iyo magacaabistii xilka ra'iisul wasaarenimo ee Cumar Cabdirashiid waxaa bilowday dhismihii maamul goboleedyada dhinaca xafiiska urur goboleedka IGAD oo qaabilsanaa fududeynta iyo dowladda kala shaqeynta dhismaha maamulada waxaa ka dhex socday danaha Itoobiya oo doonaysa inay saameyn ku yeelato maamul goboleedyada dhismaya waxayna ku lug yeelatay dhismihii maamul goboleedka Galmudug. dhismihii maamulka Galmudug ee lagu dhisay Cadaado Itoobiya ayaa la sheegay inay gacan weyn ka geysatay dhismaha maamulkaasi iyadoo ciidan geysay Cadaado oo gogosha shirka aysan suurtagal noqoteen ciidanka Itoobiya la'aantiis. sidoo kale Itoobiya ayaa ka shaqeysay shirkii ka socday Dhuusamareeb in loo raro magaalada Cadaado waxaana dowladda Xasan Sheekh ay kala shaqeysay kala furfurka beelihii ku shirayay Dhuusamareeb horaantii sanadkii 2015. waxaa kale oo kaalin mugla ay ka ciyaartay dowladda Itoobiya joojintii dagaalkii dhex maray maamulada Galmudug iyo Puntland iyo u kala dabqaadka labada maamul. heshiiskii Gaalkacyo uu ka qayb galay markii dambe ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid bishii December ee sanadka 2015. halkaasi ay noo joogto sheekada ku saabsan faragelinta qaawan ee Itoobiya ku hayso dalkeena Soomaaliya. fadlan subscribe saar barteena YouTube-ka si aad ula socoto qaybta saddexaad ee warbixintan taxanaha ee ku saabsan faragelinta qaawan ee Itoobiya ku hayso dalkeena Soomaaliya.